ولما شخصيا مركان كاللينا أنا وحان رميسنا دولة دحة وحوق له وهل أمر ميل كصوبحه وهل وضع قادة وقاب كاسة تاسان وارك أنا باهن هذا بحي يدي لو قدر بقول كيف بقولنا كتب حاول بين شواك اسمعين شواك بحي يكلفه وأنا نيجي اللي يترجم كان أنا إله الله اللي يترجم لكن أنا لو قدر اللي يقوم جويسني عدي يقوم جويسني waxa meesha yaallay waxa weeye war in dadkan loo sheego wadanku inuu Soomaaliya yahay astaanta uu leeyahay mid ay tahay shabaab inay noolaadaan waa heshiis lagu yahay maanta ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ay leedahay iyo dawlad goboleedyada iyo amisoomta joogta marka la isku daro rubuc al-10 shabaab kuma gaaraan nin hadda damac siyaasadeed iyo kuraas dayda iyo inaan isu qaawiyo 2016 kana ugu horeysay qof aan wataana ma jirto anna ma socdo هذا wiilka yar ee saaka Kismaayo jooga aad weydiiso wad mathalan caalanka Soomaaliya ah waxa laga yaabaa kan dukaamadii ku dhaganaya Jubbaland meelahaas inuu u yaqaan caalanka Jamhuuriyadda inuu kan yahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسو دوادا ورئيس قار وكالة ورقة الصومالية الصونة مقالة كسمايو حرونتا جبلان أي كل يلان يسوع مدحوينها دولة قبلات كجبلان مدن شيخ أحمد محمد إسلام شيخ أحمد مدوبي مدن مدحوينه كسو دو مركورة وكالة ورقة الصونة ومقالة كسمايو ورئيس وريك قادس بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدين ودين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رمضان كريم إن شاء الله وحان لا هاي هذا نوفر حسنا صونا أنا المرض دم بمقلو قالوا دي ورك صوانية صونا وما لها كذا تبنجتي وحان فيلا يا أنا هذا بابوتي نقط صارتان سمع عاديه وحي اللي يدين كوي قاني اللي يدين كيرد هذا نوفر حسنا إن أنا مرة بعد مقلو صونا إني كسر نقطة صحافة الصومالية. سيد مدن مدحوينه سؤال شو هو الرئيس ربنا كويدي مدحوينه واحد تاعي واحد مدحوينه كتاعي جبلان ومركي لبعض الوجود دورتي حلك مدحوينه نمدا وأنا متكمل مالها الصومالية لبعتنكي سنة لصعدة في دباتوين كوجود بدن أي كجيرين بل سجود وربحنا وقصي حالة السياسة جبلان ما أنت كسرنتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أرتاد ما حصلتهاي حالة Jubbaland waa saad u sheegtay meelaha ugu xasaasiyaadka badan bay ku jirtaa Soomaaliya 22 sano dagaalka sugayay ama ha noqoto mid qabali ama ha noqoto mid siyaasi oo ka jiray waxaan wali ku jiraa dib u heshiisiin inaan wali isu keeno mujtamaci dadka aan u sheegno waxay isu yihiin waxa ka dhaxeeya bal ugu yaraan si waxaan isleeyahay haddii maanta ay gobolka Jubbaland ama Kismaayadan hadda aan maanta xarunta ku meel gaarka noo xaaladeeda siyaasadeed iyo wada noolaansho iyo dib u heshiisiinteeda ay hay'ato waxaan isleeyahay saameyn badan bay ku yeelanaysaa guud ee Soomaaliya taas marka waxay loogu kaliftay maraaxil dheer waxaad ogtiin hadda dawladii hadda aan soo dhisay 8 bilood ba waxaan sugayay inaan dib u heshiisiin ka hormariyo waxaan inta isku daynay inaan shirar badan dib u heshiisiin aan sameeyno waxaan isku daynay qof kasta wax tabanaya inaan keeno bal wada hadallo Soomaalidu nina walaalo waxay ku dhaantaa ma jirto maanta nin dagaal muskaya Soomaaliya inta sano lagu jiray qoys ka adkaaday ma jiro qabiil ka adkaaday ma jiro mid ka adkaan doonana ma jiro qabiilka ugu yar iyo ka ugu weyn maanta waa loo sameeyay kii wax sheegtay shalay iyo kan maanta wax sheeganaya iyo kabari wax sheeganaya kulligood wax noocaas deegaankan marka annaga ujeedadeedu waxay ahayd inaan dib u heshiisiin rasmi ah sameeyno inaan xaaladii ka bax ku jirta ahayd ee gobolka ka jirtay wax ka qabano inaan gaarsiino mujtamaca Soomaalidu bal wax isagu u wadareeyahay mustaqbalka ayahooda ay ka wada tashan karaan inay gaaraan taasoo macnuhu uu noqonayo inayna jiri kareynin wax la yiraahdo qolaa meel joogaysa qolaa haysanaysa dib u heshiisiinta waqtiga dheer inta la qaadatay waxay u kalifaysaa waxay ahayd waxaan rabnaa inaan ugu yaraan wax taariikh ka tagno maanta waan joognaa berri waan ka tagaynaa maxaan soo qabanay maxaan kaga tagnay maxay tahay xalka la gaaray intaasoo dhan baa nooca u noqonaysa marka waxay la tahay
arrintaasi waa taa aad arkaysaa dib u heshiintuna ma dhammaanayso waa mid socon doonta waa mid aan rabno inaan geed walba iyo guri walba ugu tagno oo ugu yaraan waan rabnaa inaan berri ka tagayna inaan waxuun magacaan kaga tagno aad baad mahadsan waaya mudane madaxweyne inta magaalada aan joogo waxaan ku arkay rag badan oo muddo badan mucaarad ku ahaa maamulka inta adigu aad hogaaminaysay qaar badan dowladda ay qaybaheeda kala duwan ku jiraan Jubbaland ma jirtaa cid aad tabayso oo wali talada deegaankan wax ku leh oo colaad ama qanaaca la'aan uga maqan gobolka oo aad u gacan haatinaysa ma raadinayso wali bismillah hadda horta ma way jiraan waa khasab tabashada iyo cabashada iyo wax sheegashadana waa waxaan dhammaanayn laakiin maanta waxaan isleeyahay irid kastoo islaha iridaasaa maanta taagan waan garaacay cidaan isleeyahay hadda cidaasaa mucaarado ku maqan ama qof siyaasi oo isleeyahay fikirkaas raadi ama qaabkaas yeelan hadda ma jiro sababtoo qolada hadda ugu dambeysa waxay 8 bilood kuwii aan hadda barnaamijkan intaas maamulka u sugayna oo goosha halkan dhigno ku qabanno ku dhamayno dadkuna mucaaradaduna saaka waxay aad bay u sahlantahay waxay ku xiran tahay aniga masaalixda shakhsigan leeyahay haddaan waayo ma aha tugu tayda personalka haddaan waayo ee shakhsiga mucaaradadeeda bannaankay taalla marka mucaaradadii Soomaaliya waxay iska noqotayba wax masaalix shakhsiga ku xiran laakiin diyaar baan u nahay cid kasta wax sheegatana inaan la hadalno laakiin waxaan isleeyahay maanta ma filayo cid aan isleeyahay jaanibkaas oo dhan baa maqan oo qaabkaas ku maqan yahay waase wax dhici karayo aan diyaarna u nahay inaan sii wado waaya mudane madaxweyne Jubbaland waxay ka kooban tahay 3 gobol hadda halkan Kismaayo aan joognaa qaybo kale oo gobolka kamida iyo Jubbada Dhexe iyo sidoo kale qaybo gada kamida wali shabaab ka taliya maxaa qorshaha ugu yahay dadkaas kale ee maaragtay mas'uuliyadooda ay ku saaran tahay si aad xal ugu hesho horta ma aha inay hadda qaybo kaliya maqan tahay xataa kuwa xorta ah isu socodkooda yar waa wax runta in laga sheegaa fiican waxaan isleeyahay ضعفي maanta ka jira shabaab iyo qaabka loola dagaalamayo sida loo wajahayo oo la fudaysanayo aan dagaalkii dhab laga wada ahayn oo qaab badan baa sababaysa laakiin hadda waxaan wadnaa waxay ugu magacdareen Jubba Corridor oo lala in la qaado rabadaan haddii laga baxo haddii la yiraahdo wixii ka dambeeya howlgal rasmi ah oo deegaanadana lagu xoreynayo gobolka maqan dhulka dhexdiisa waxa lagu jirana dagaal isku xiran oo la qaadayo midkaas hadda qorshuhu yahay wixiina waxa anaga Soomaaliya ama Jubbaland kaliya uma yaalo Soomaali kaliya uma yaalo oo wax caalam badan iyo AMISOM iyo UN iyo kulli ay ku wada jiraan hadda laakiin sida jadwalku yahay waxa way rabadaanta kadib in hawshaas qaabkaas loo qabto waxna laga bedelo hadii ilaahayna sidaad sheegtay dib u heshiisiin badan baad gashay meelaha dib u heshiisiinta ka gashana gado ayaa ka mid ahayd siyaasiyiinta maamulka Jubbaland ama dowlad goboleedka Jubbaland wax ka qabay oo qaarkood hadda madaxda sare halkan ay ka mid yihiin laakiin markay noqoto adeegga maamulka iyo hawlaha caadiga ah ee maamulka ka waran gobolka gado ma gaareen oo Jubbaland ma ka shaqaysaa gado waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto hadda waxaan magacaabay 2 guddi oo labada madaxweyne ku xigeen ay kala hogaamin doonaan labada guddi inta xorta ee gobolada Jubbada Hoose iyo inta gobolka Gado laba guddi baa kala aadaysa oo hay'adihii dawladda oo dhan ka kooban dhismihii dhamaystirkii dhismaha maamulka dawladda wakaaladihii iyo wax walba wixii wasaaradaha wakiilada ka ahaa habeyntii ciidamada dhaqaalaha waxaas oo dhan marnaa kulligood in wax laga wada qabto marka Gado kaliya ma ee marka horena system uu ka jiray haddana in la dhamaystiro iyo labadaas madaxweyne ku xigeen iyo qaybo golaha wasiirada ay kala hogaaminayaan baa labada gobolba ka hawlgeli doonta hadii la yiraahdo inta ka horeysa hawlgalkan dagaal la galayo waxaan sameynay qorshe 45 beri lagu diyaarinayo systemkii deegaanada ka bacdina waxaan rajaynayaa deegaanada in loo dhisi doono council ama gudiyo qaabkaas si dawladaha soo kala iyo maamulo idadka iska soo dooran doonaan maamulkooda marka taas waxaan rajaynayaa in hadda noogu jirto balaankan usbuucan rabadaanta dhexdeedana ay bixi doonaan gudiyadaasi ayna hawlgeli doonaan hadii ilaahayna waaya madaxweyne waxaad ka mid tahay madasha hogaamiyaasha Soomaaliya arrimaha Jubbaland haddaan xaggaas uga gudbo arrimaha heer federaal aan u gudbo dadka Soomaaliyeed idinka indhaha idinku hayaan madasha waqti doorasho adag baa lagu jiraa su'aalo badan bay dadku isweydiinayaan waxa ay madasha ka filan karaan adiguna xoogagaal baata maxay kula tahay dadka Soomaaliyeed in ay idinka sugi karaan mustaqbal noocee ah madashu in dadkan u horseedi karto هذا ما تصنطه
ummadda Soomaaliyeed waxay naga sugaysaa in hadda madasha dhan iyo hadda horta wax la isasuuyo ugu badan waa 2016 iyo isbedel ma dhacaya mise ma dhacayo taa waxaan u maleynayaa 90% isbedel inuu dhaco qof waliba uu ku qanacsan yahay waxaa laga yaabaa inaan isweydiiyo ilaah wax khayr la keeno ilaah wax saas keeno inuu isbedel dhaco horta bal wuu jiraa taas waa fool taagan annaguna heshiis baan ku nahay in isbedel uu dhaco taqriiban bisha August baan u maleynayaa inay ahayd waqtiga loogu talagalay waa laga yaabaa technicality inay muddadu wax dib dhici karaan laakiin inaan extension jirin iyo muddo la kordhisanayo arrintaasina ay dhacayso inaan isu nimaadno oo annagoo hogaamiyayaal Soomaaliyeed dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii intaan isu nimaadno mustaqbalkii iyo masiirka Soomaaliya aan ka tashano oo go'aan ka gaarno oo aan fulinay waxaan isleeyahay waa talaabo hore loo qaaday oo Soomaaliya marxaladii ku jirtay laga soo gudbay marxaladii hogaamiye kooxeed ama qabaayil qaab isu haystay ama sida oo hadda balqaab system intii lagu hadlo la isqanciyo waxaan rajaynayaa berri inay gaari doonto marxalad midaan ka fiican annaguna intanada hadda aan isku ognahay xusni niyo badan baa jira niyad wanaag badan baan soo haynaa waxa ugu muhiimsan hadda ka hadlaynana waxa weeyaan war dadku waxbay naga sugayaan Soomaaliya anaga mas'uuliyiinka ah mas'uuliyadu anagana saaran tahay international iyo cid kale toona lama xukunto dadkan riyadooda dadku maanta riyada dawladdu way dareemayaan riyadooda aan xaqiijino midnimadooda aan xaqiijino isu keenistooda aan xaqiijino isbedelkay doonayaan waa ogtiin hadda baarlamaankii 2012 hal cod buu ahaa waxa hal oday baa dooranaya hal nin markaasaan nin waliba siduu ku helo qaabku doono sameeyay laakiin hadda waad aragtay marxasha la soo maray in nabadoonka guud ee reerkaas iyo nabadoon qabi ugaaska guud nabadoonada uu yeelo ay ka tashadaan horta kursiga yaan siina beeshii la xadiday 10 qof ay iska soo sharci doontii intii la doono konton iyo kow qof oo ururadii bulshada haweenkii dhalinyaradii aqoon-yahankii saraag ka kooban ururada bulshada in la keeno ay halkii kursi oo codeeyaan yani waad garanaysaa waa stage horey loo gudbay marxaladda horey looga gudbay marka waxaan isleeyahay taas anagu riyo wanaagsan bay keenaysaa dareen fiican baa ka soo socda dadkuna haddii annaga laftirkooda dabakawar aan qabno leenahay wallaahi dadka idinka dambeeya malaha way idin durayaan iyo waxaan idinku xamanayaan iyo annaga laftirka kalsoonida naga lumaysa dadkuna kalsoonidooda ha ku qabeen in mas'uuliyiintoodii oo masiirkoodii ka tashanaysa aan nahay iyagoo annana aanu ku qabno dadka inaan u daacadnimo samayno haddii admaacda siyaasaddu ay noqonayso dee nimanku war iyagii baaba sharaxan oo iyagii baa mas-uuliyaddii wada rabo oo iyagii baa qaabkanaysay xal ku gaadhayaan iyada lafteeda dantaa keentay inkastoon aanu ku talin lahaa markii hore haddii la i weydiinayo waxaa ficnaan lahayd in laga wada madax bannaan yahayoo taladan in loo daayay dadaan lugba ku lahayn haddana dee wadankii baan kala soconayno waxyaala khasbayaa jira qofkana waa muwaadin Soomaaliyeed ninka madaxweynaha ka wasaaraha ka speakerka ka dowlad goboleedka xukuma nin waliba wuxuu xaq u leeyahay inuu sharaxi karay taa markaa taasaa xadidaysoon u diidi karaynin markaa madaxweyne intii madashaasi ay socotay 6 bilood ama 7 bilood la soo dhaafay hadallo iyo ficillo Sheekh Axmed ka yimid oo waxa jira dadka Soomaaliyeed aad u saameeyay oo aad u hadal hayaan waxa kamid ah markii halkan magaalada Kismaayo lagu qabtay shirka oo aad amar ku soo saartay in hoolka shirka waxaan calanka Soomaaliya ahayn aan lagu arkin ka horna dhowr mar hadalada jeedisay ay kamid ahayd in qof kasta uu iska dhigo mas'uuliyadda ama dareenka uu deegaankiisa kala yimid wax Soomaaliyeed loo hadlo maxaa hadaladaas kugu dhalinayo aad dareemaysa wallahi dee dareenan qaboon bay ahayd wax ma ahayn ama aan soo diyaarsaday ama aan qaabkeena laakiin dareen ii muuqanayay iyo wax aniga ay faraysa damiirkaygu un bay ahayd wax hadda ma ahayn ama dan aan ka lahaa ama laakiin damiirkaygu wuxuu ifaray in fact calaamadan isgarab yaalla iyo sidan tirada badan iyo qaabkan hadda loo dhaqmay iyo dadku haddaad wiilka yar ee saaka Kismaayo jooga aad weydiiso ood matala tira calankii Soomaaliya away waxaa laga yaabaa kan dukaamadii ku dhaganaya Jubbaland meelahaas inuu u yaqaan calankii jamhuuriyadda inuu kan yahay waxaa laga yaabaa taariikhdii calankan iyo wixii loo soo maray iyo taariikhdiisa iyo dhibkiisa inuunan garanayn at least waxa meesha yaallay waxa weeye war in dadkan loo sheego wadanku inuu Soomaaliya yahay astaanta uu leeyahay mid ay tahay haba la samaysto calaamaadkan goonida iyo kan oo
state waliba wax adduunka ka jira laakiin anaga bisaylkeedii ma lihin anaga bisaylkanay sida hadda caalamka kale ay noocaas ma lihin laakiin taasaa sababtay midda luqadda Soomaaliga oo kale ta luqadda Soomaaliga luqadaha hadda dabargo ayay ku jirtaa luqadda Soomaaliga marka intaasoo qof hadda dibadda laynooga qaaday oo intaasoo caruur la soo celiyo oo maanta xafiisyada dowladda oo dhan kulli waxa lagu qorayaa English ay tahay oo yani waxaad dareemi karaysaa oo qofka wax lagu qiimeynaya ay luqad tahay oo shaqadii luqad lagu bixinayo in luqadan ay dabar go'ayso waanan hubaa haddii hadda sidaan ay kusii socoto muddo yar inay dabar go'ayso waxaan markaa door bidayay mas-uuliyiinta Soomaalidu inay ka hadlaan oo ku hadlaan oo ku dhaqmaan oo xafiisyadooda kaga maamulaan luqadan ay leeyihiin inay toodii tahay waxba aan gaajaysnaana laakiin adoo waan baahnahay waqti looma cuno hadda maalin madaxweynaha Turkiga aan u maleynaya ayaa wada joognay xaman wasiirkiisa arrimaha dibadda joogay waxaa laga yaabaa ninkaas inuu jaamacad Mareykanka macalinka ahaa af Turki buu ku hadlay waa laga turjumaya aan baahnaada maxaa ii diiday luqadeeda 100% inaan ka tago xamar baan joogaa Kismaayo joogaa maxaa igu kalifay waa in aniga laga turjumo ninkaan aniga la hadlaya laga turjumo laakiin aniga luqadda lagu gumaysanay cid iguma gumaysanayso khasabna iguma aha inaan luqadan haddaan isticmaalayo waxbaan waayaya taasaa anu igu keenaysay ma aynan ahayn wax hadda amaan mas-uuliyiinta kale iyo luqadaha yaqaanaan wax kaga sheegaya ma aysan ahayn waxaa markaa dareenkayga keenay waxay ahayd intaasoo TV oo taagan live u baxaya waxa dhageysan Soomaali ay tahay waxoogaa damiirkayga wuxuu siinayay inaan luqadaas la isticmaalo saasta waa maasanta madaxweyne dad badan oo Soomaaliyeed oo arrimaha federaalka iyo dowlad goboleedyada dhinaca aan fiicnayn ka taagan ama aan ku faraxsanayn waxay walwal badan ka qabaan in habka maamul goboleedyadu ay u samaysan yihiin ay keeni doonto in ay midnimadii Soomaaliyeed iyo awoodii dowladda Soomaaliyeed ay weeqdo oo ay Soomaaliya noqoto imaarado yar yar oo googo'an adiguna xogogaal baa tahay mid ka mid ah madaxweynayaasha muhiimka ah ee dadku ay maanka ku hayaan baad ka mid tahay qofka Soomaaliga ah ee qaba walwalka ah in jiritaanka Jubbaland ama Galmudug ama Puntland ay Soomaalinimadii ku baaba'do maxaad u sheegi lahayd maxaad ku qancin lahayd markaan aanu shakhsiyan iska soo qaado anu dawlad dhaxaan rumaysnahay waxa aniga rabitaankayga markaan ka hadlayo waxaan rumaysnahay dawlad dhexe oo xoog leh oo gobolada qaabka u maamusha oo sidii Soomaaliya aan ku soo koray ahayd iyo sidii aniga taariikhdii Soomaaliya aan ka soo maray markaan ka hadlayo laakiin inaan noocan federalism dan baa la mooday danta la mooday waxay ahayd dadkii qabaa'il baa loo burburay qabiil baa la isu laayay waa la kala tegay war at least bal intii isfahmi kartaaba intay isu tagto oo wax isla sameeyaan isu soo noqdaan berri madashaan intaan isugu soo noqonnaa waan iska laabi karnaa waxaan hadda na dhibaysa inaan ka xumahay hadda inaan dhisno Shabeelle oo kale ama state Hiiraan loo bixiyo ama Shabeelle la yiraahdo oo aad arkaysaa qaabka wali conflictiga kalaankii baa nagu dhex jira qabaa'ilkan iyo barnaamijkan intuu nagu dhex jiro inaan bal isku dayno marka hore bal intii isla fahmi karta inaan noocan federaalka isugu tagno ka bacdi waxaan isleeyahay adduunku maanta dowladaha hadda dib u midoobaya dowladaha hadda kala tagsanaaba isu imanaya waxba Soomaalidu meel ma kala jirto maanta gobol meel u baxaya ma jiro meel nin ku noqon ku xasnaana ma jiro anu waxaan isleeyahay saldhigu waxa weeye dariiqii loo mari lahaa sida jamhuuriyadda Soomaaliya qaabka isugu noqon lahayd iyo isugu adkaan lahayd kala geyn hadda uma arkayo sababtoo shayga asalkii waxa weeyaan bal horta inta isfahmi karta iyo inta meel isla mari karta iyo inta wax isla soo qaadan karta hal isla keeno meel aan ku wada tashan karnaa isla nimaadnaa aad googoyseen ma waliba shakhsiyan markaan ka hadlayna aan waxaan rumaysnahay dawlad dhexe oo xoog leh oo hal amar meel ka soo baxo oo hal wada qaada oo qaabkaasa taasaan u arkaa warkaas waa cad yahay ugu dambeynta arrimaha shabaabka sida hadda ay mar xustay shabaab dhibaatooyin badan bay Soomaaliya ka wadaan bilihii dambana dagaalo aad u xoog badan oo waliba ciidamada AMISOM iyo ciidamada dawladda ay ku qaadeen meelo kala duwan oo dad badan ay ku dileen bay geysteen iyagana rag badan oo madax ah baa laga dilay maxay kula tahay xogaalnimadaada dabcan dadka aad u yaqaanaad ka mid tahay shabaab waqti dheerna la soo dagaalay maxay shabaab u nool yihiin waqti intaas dheer la eg shabaab inay noolaadaan waa wax heshiis lagu yahay maanta ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliya ay leedahay iyo
dowlad goboleedyada iyo amisoomta joogtaa marka la isku daro rubcul cushur shabaab kuma gaaraan 110 loo qaybiyo 10 hal meel kuma dhanna shabaabku inay noolaadaan markaas lisaan xaalku wuxuu iska noqonayaa Soomaaliya sidan waa la rabaa inay iska jiraan shabaab in lala dagaalamo heshiis ma lagu yahay see in loola dagaalamo heshiis loogu yahay maanta waxaad arkaysaa buulo bardaa dagaal ka dhacaya amisom iyo halkaasaa lagu qaaday iyo Soomaalida wada socotay 3 bilood kadib waxaad maqlaysaa waxaa baydhawaa laga qaaday 5 bilood kadib maxaa diidaya 22,000 oo amisom 30,000 oo Soomaaliya 50,000 oo dowlad intaasoo ciidana jirta in hal maalin dagaal la xadido oo meel goob walba laga qaado oo lanagu caawiyo oo sidaa shabaab loola dagaalamo oo geedka hoosta loogu tago maxaa diiday inta barnaamijku uu yahay intii meel tuulo laga qaado haddana sanad kadib haddana meesheeda la tegaya ciidan amisom meel degayo hal Facebook 3 sano ku jira oo sahan iyo wax walba ku kor dhamaysteen iyaga khiyaarkii iskale weerarkii iyagaa leh saacadda iyagaa leh waa danganaysaa qaacidada caskariga difaac la sameeyo waxaa ugu fiican hujuum in wax la weeraro yaa ugu fiican difaac aad gelayso iyagii wax weeraraya annagii waa difaac ku jira intaasoo ciidan aan sheeganayna intaasoo dowladba milyanis baa laga hadlayaa maalinba ku baxaysa milyanisku ma tufaaxa xamar lagu gadaa ma khudaarta amisom iyo raashinka war ma aha sidan dagaalka shabaab markaan dhab ka hadlayno dagaalka shabaab in lala dagaalamo diyaar ma loo yahay mise su-aashaad weydiinaysa war ma jirtaa shabaab in lala dagaalamo ma diyaar ma loo yahay mise looma maxaase ka dhiman goormaase lala dagaalamay yaase la dagaalamay annagii Soomaalida iskuma tashanayno oo maanta oo dhan waxa weeyaan ciidankii haddaad weydiiso SNA maanta oo dhan marka howlgal la yidhaahdana waxaa la waayey in yar baa la harki markii saad iyo loojista laga hadlayna kumanaan baa la heli amisom dhufaysay ku jirtaa 3 sano xaggan sidanaa la samaynaya yaa horta la dagaalamaya shabaab fursadda ugu liidatay haystaan hogaamintoodii baa burbursan hogaamin ma laha waa waxay u taagan yihiin ducfigooda meeshii ugu dambeysay waxaan is leeyahay si aad iyo aad u fudud baa kulli barnaamijkooda dhan lagaga takhalusi karaa laakiin waa marka lagu heshiiyo xagee ka dabacsantahay is leedahay baash ma dhinaciina ma dhinaca beesha caalamka ma intaas de waxaan aragnaa waxa laga yaabaa dadku in is leeyihiin Sheekh Axmed wuxuu og yahay oo ku saabsan yani odayaashii hadday wada joogaan wadanka xukumo madashii kamid yahay wax badan buu ogaan karaa marka ma idinkaan isku raacsanayn ma caalamkii ma idinka wax idinka dhageysanayn halka ka qaldanta dagaalka shabaab horta ciidan intee leeg baa Soomaaliya jooga amisom ka jooga waa 22,000 askari shabaab ma walaha intee ciidan SNA aad joogta way badan dowlad goboleedyada intee leeg bay sheeganayaan meeqa wax lagu bixiyaa anu saaka haddaan askarigayga daco qorina uma soo helayo rasaasna ma helayo waa laga yaaba labadaba inaan waayo kan amisoomta ana lacag intaa leeg baa bishii ku baxaysa marka logistikada laga arkiyo waxaan laga soo tago yaa laga rabaa inuu wixii xidhiidhiyo ana waxaan is leeyahay mas-uuliyadda dagaalka shabaab asal waxaa waa dowladda federaalka inay iyadu dhaqaajiso qolada internationalka ee hawshaan ka xisaabtamaya ee iyagu wax ku sheeganaya milyaniska dollar sheeganaya inuu kaga maqan yahay ay ku bixiyaan amisom iyo in shabaab lala dagaalamaan in lala xisaabtami karo la weydiin karo waxaad bixisaan xageebu ku baxaa ma 3 sano askari dhufays lagu siiyaa annaga wax noo noqonay ciidanka Soomaalida ee taliyayaashii duqoobay iyo odayaasha ay wada hor fadhiyaan ee laga hadlayo oon 30 ku baan haynaa iyo 22 ku baan haynaa markii loo baahdana aadan arkaynin meel wax lagu socdo kuwan dowlad goboleedyadu intaas ciidan ay sheeg ana waxaan isleeyahay isku dubaridna marido shaygan asal hogaan mas-uuliyadda dayacaadeeda waxaa iskale dowladda federaalka la xisaabtan la-aanta ka hadal la-aanta isdabagal la-aantana mas-uuliyaddeeda iyadaa iskale mas-uulkaa annagu kaabayaal baanu noqon karnaa bahashaana waxa weeyaan waa la kala xishoonayaa dowladahana indhaha laguma cadayn karo internationalkana madaxaan u foorareyna markay nala hadlayaan waxaa laga hadlayana waxa hoogiyo hirtaanyo ku dhammaan maxba shabaab in lala dagaalamo go-aan ma aha runta markaan kuu sheegay ma qabo shabaab in lala dagaalamo go-aankaas ciduu weli ka yaalaba weli go-aan meeshaas yaalama waxaan hadda ku wada jira aan leeyahay 17 Ramadaan bay meel weerarayaan xageen galaa iyo seen isaga celnaa meel hiblay weerarayaan meel hiblay weerar oo maan weerarano ma la socdo intaas amisom joogta intaas Soomaaliya joogta Mareykan baa waxaan idinku caawinaynaa kan Yurub baa intaas milyan baan ku meel la aado maxaa dhufayska nagu kalifaya marka taa adeer anu intaan ka ogahay
waxaa weeyaan shabaab meesha ugu jilicsaneyd bay taagan yihiin waa very weak si walbaa looga adkaan karaa laakiin caalamku heshiis buu ku yahay in lala dagaalamo anugu hadda qole heblana odhan mahay hadday dayacaad mas-uuliyeed ka timaadana xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarihiisa ilaahay korkooda ha ka weelo iyagaa soomaalidu iyagay sugaysaa inay barnaamijkan si dhaba uga hadlaan laakiin bahashu inta ay taagan tahay un inaan dowlad heblana lalama hadli karo qoladana lalama hadli qoladana lalama hadli warcad waa xagga fikirka markii la fiiriyo dad badan bay duufsadaan dhalinyaray qortaan oo ay weli maaragtay isticmaalaan dad baa wadaado maxaa sababaya dhulkay haystaan ilmaha 13 jirka ururinayaan war dadkan haddii cid ka soo gaadhay la waayo ma aha duufsi khasab baa lagu waxaynaya kii ka soo carara intay ka dambeeyay bay dilayaan maxaa sababaya qofkan khiyaarba ma laha nolol ma jirto meeshaan markaas waxaa laga hadli karaa in dadkan fikir anu waxaan isleeyahay maba jiraanba hadda inta shabaabka sheeganaysa ninaan maanta isleeyahay diin bay ka tahay oo caqiidu ku dagaalamayaayo fikir buu dad gaarsiin karaa ma jiro nin maanta intuu istaaga masale ka hadli kara duleedeenkii shalay halkan aan ku aaslay baa ka jira waa shaksiyaad hebel iyo hebel la odhan karay dadkan dad xoog lagu wato oo lagu irtisaaqo xoolo lagu urursado wey waa fikir aan jirinoo caqiimo ma soo korayo dadkan xoogga lagu wato fikir ma aha waa xoog waxaan dadka ilmaha 13 jirka laleeyahay kaalay sida filimkii loo jilayo maaha wax fikira maaha qanaacada fikirka iyo in laga dhaqayo in dadkan koorso tababaro la siiya in maskaxdooda ma gaarsiisna barnaamijka halkaas waxay u baahan yihiin dadkan horta culayskooda in laga qaado dadkan dhalinyarada nolol loo abuuro isbedel wadanka uu ka yimaado gabagabadii madaxweyne arrintaas jabhadahan ay shabaab yani hadda waxay ka soo abuurmeen wadaado siyaabo kala duwan soo dagaalama wadanka meelo kala duwan ka soo dagaalamay oo odayaashooda aad waqti ka mid ahayd aqoontaada iyo waayo aragnimadaada ma rumaysan tahay taladaasu meel ay ka qalloocatay xagga fikirka in ay jirtay oo raggiinii hore oo adigu aad ka mid ahayd oo maaragtay qaar kaloo badan oo adduunka maanta jooga ama wadanka wax ka xukuma ay ka mid yihiin meel aad ka qaladeen oo nimankan ay ahayd maalin ay ahayd inaad qabatiin oo aad seegteen inay jirto way jirtay maalmo badan oo in la qabta ay ahayd baa jirtay inxiraafkan manhajka culimaduna way ka hadashay inxiraaf diini ah soo galay qaabba wax isu bedeleen dareen baa jiray waqtiyo badan oo in wax laga qabto fikirka ay ahayd way jirtay laakiin kala qoqobnaanta ninka maanta haddaad kaambooni ka soo caydhiso ceelgaras buu tegayaayo ceelgaras buu fikirkii ka helayaa meeluu ka sii wato waxaa caawinaya noocan qabaylka ah iyo qaabka ay mujtamaca u kala dhexgelayaan iyo reer walba iyo qaabku ahaayo siduu ah taasaa abuuraysay laakiin waxaan is leeyahay maanta dadka ay gacanta ku hayaan cabsi waa ka jirta mooye shay caqiide iyo fikir anigu shakhsiyeed ma rumaysni maanta inay jirto wax caqiide iyo fikir intii Sheekh Axmed aad baan kugu mahad celinayaa dadku waxay isweydiinayaan Sheekh Axmed Maxamed Islaam hiigsigiisa ugu dambeeya xaguu yahay Jubbaland kadib hadda Jubbaland bad madaxweyne ka tahay xagee jeceshaa kadib inaad ugu gudubto horeyna fikirkayga waan u sheegay asal ahaan anugu ma ihi shaksi inuu siyaasadda ku sii jiro danaynaya markaan anu shaksiyan iska hadlay tanaan joogana inaan taariikh kaga tagaan rabaa xamarra uma socdo madaxweyne soomaaliyana uma socdo waxaan rabaa anoo muwaadin soomaaliyeeda fikirkayga xortaa inaan sheegi karayo oon ka hadli karo waxa aan qabo aan xor u sheegi karayo haddii damac uu igu jiro maanta oo 2016 iyo ta kale iyo aan damac kale waxaa laga yaabaa 90% damac aan qaba inuu ii diidayo fikirkaan qaba inaan xor ka noqdo taasaa waxay igu sababaysaa marka inaan barnaamijka siyaasadda aana doonaynin inaan waxaan rabaa ganacsiga inaan ku noqdo beri baac mushtar ahaado ma rabo inaan siyaasad sii quuto inaan kusii jiro ma rabo inaan waqtigayga siyaasad kusii laakiin waxaan rabaa intaan joogan inaan ka tago magac iyo at least wax taariikhda geli karaya talada dambe ku yeelan kara haddii ilaahay intaan nafta igu soo inay noqoto talo aan dadka kula talin kara waxaan maslaxa warko leega dhageysan karaye nin hadda damac siyaasadeed iyo kuraas dayda iyo inaan isu qaawiyo iyo 2016 kana ugu horeysay qof aan wataana ma jirto anna ma socdo laakiin waxaa ii muuqanaysa waxaan danta Soomaaliyeed xalka u arkay inaan war halkaas asaasay halkaas inaan xor ka ahaadaan doonaya aad baad mahadsan daawadayaal inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa wareysiga gaarka ah ee wakaaladda wararka Soomaaliyeed uu siiyay madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe